رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيانيقو معلن موسى barta aad naga daawanayso oo ah channelkeenu ku leenahay YouTube-ka Macalin Muuse Official Channel. haddii ay tahay markii kugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena, fadlan YouTube channel-ka subscribe tasaaro, sidoo kale gambaleelkana furo, lana wadaag asxaabtaada inta kale insha Allah. mar haddii aad aragto Macalin Muuse oo ka soo muuqday bartiisa YouTube-ka wax un buu wadaa. maanta sida balanteenu ay ahayd maalinta talaadada waxaanu dhahnay waxaan ka jawaabeynaa su'aalaha idinka aad soo weydiisaan. maalinta talaadada waxa aynu ku balansaneen in aynu ka jawaabnaa su'aalaha idinka aad soo weydiisaan. haddaba maanta barnaamij aniga jeebkayga ma wada waxaan wadaa in aan su'aalihiina aan idinkaga jawaabo aad idinkana soo weydiisaan, commentiga nagu soo weydiinaysaan. xagee ka soo qaadanaya su'aalaha maanta aadna weydiinaysaan? waxaan ka soo qaadanayaa intii daawatay muuqaalkii aan kaga hadlayay fasirka riyooyinka dadka dhintay oo lagu riyoodaa. fasirka riyooyinka dadka dhintay oo lagu riyoodaa barnaamijkaas markii aan ka soo hadlay muuqaalkaas, dadkii farcelintii iyo commentiyada ka bixiyay, dadkaas ayaynu insha Allah taala jawaabahooda siineynaa. waqti badan ma raba inaan idinka cuno, si toos ah ayaan u guda galayaa su'aalaha. su-aasha koowaad ee la soo weydiiyay waxa ay leedahay, waxaana soo weydiisay gabar magaceedu uu yahay Taliso Maxamuud. halkan aan ka salaamayaa Taliso, ma sha Allah. wax waliba oo la saaro waan saaray, qeyrka Allah naga ka waafajiyo insha Allah ayay tiri. adigana sidoo kale ayaan kugu duceynayaa, ducada aad ii soo duceysay mid lamid ayaan adigana ku duceynayaa. Neyrus nalka ayaa waxa ay na soo weydiisay oo ay leedahay, waxaan ku riyooday 3 mar wiil aan xiriir lahayn oo dhintay, haddana aniga si gaar laygu tacsiyadeynayo. wiil oo ay xiriir iyo kalgacayl iyo jacayl ay ka dhaxeeyeen ayaa waxa ay ku riyootay isaga oo dhintay, iyadana si gaar loogu tacsiyadeynayo. macnaheedu waxa weeyaan wiilkaasi isaga haddii ay sadaqatu riyaaki Neyrus haddii run ay sheegtay maxaan ku radaa riyadaadu, wiilkaasi isaga gaf ayuu ka galay. gafkii markii uu ka galayne gadaal dambe ayay kala xumaatay gafkii oo waa uu ka toobad keenay, waana uu ku soo noqday. macnaheedu waxa weeyaan qofka sideedaba qof dhintay marka lagu riyoodo ama qofka isaga oo dhimanaya marka uu ku riyoodo, waa qowmamo uu ka qowmameynayo ama shalayto uu ka shalaynayo camal aan wanaagsaneen oo uu sameeyey. marka wiilkaasi wax aan wanaagsaneen ayuu sameeyey, waa uu ku soo hoyanaya, waa uu ku soo noqonaya, maadaama adiga si gaar lagu tacsiyadeynayo aad aragtay. su-aasha kale una soo weydiiyay ama ayna soo weydiisay Nasra Cudoon, gabadha ay ugu qoran tahay, habeen walba aabahay oo dhintay ayaan ku riyoodaa, mana noola. horaan usoo sheegay, isla clipkan oo ku soo sheegay muuqaalkan, qofka marka uu qof dhintay uu ku riyoodo, macnaheedu waxa weeyaan qofkaasi waa un laba mid, ama inuu bishaaro kuula yimid ama inuu digniin kuula yimid. haddii aad aragto qofkaasi isaga oo faraxsan oo dhoola cadeynayo, waxa uu ku faraxsan yahay meesha uu markaasi ku sugan yahay iyo xaaladda markaasi uu ku sugan yahay. haddii aad aragto qof dhintay oo wejigiisu cambuus oo aan hadlaynin oo xanaaqsanne, ducuu kaa rabaa, ducuu u baahan yahay. intaasaan kuu faa'iideynaya oo keliya. aabaha xaaladda uu markaasi kugu yimid oo keliya ayay ku xiran tahay. haddii uu farxad kugu yimid iyo reen xaalad fiican uu ku jiraa. haddii uusan hadlaynin oo xanaaq uu kugu yimidne, u duci xaalad xun uu ku sugan yahay. gabar la yiraahdo magaceeda Faatima Cabdiweli ayaa waxa ay na soo weydiisay, 2 maalin ka hor waxaan ka murugeysnaa dembi aan galay, allaha ii dembi dhaafee. markaan seexday waxaan ku riyooday aabahay iyo ninkayga oo dhintay. dembigii ay gashay oo ay ka naxsaneed oo ay ka qowmameysay sababtiisa
ayay waxa ay ugu riyootay aabaheed oo dhintay iyo ninkeeda oo dhintay. horeyna waxaan usoo sheegnay qofka marka uu ku riyooda qof dhintay waa qoomamo, waa shalayto weeyaan. xabsi cabdilaahi waxa ay leedahay, sheekh ani waxaan ku riyooday nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo meyd ah oo kafantu ku xidhan tahay, marna anoo dul jooga, aniga oo waxay ka wadaa macnaha xabaashiisa dul jooga ayay ka wadaa. gabadhaani waxa ay leedahay xafsa waxay ku riyootay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama isaga oo meed ah, ma ayna ku riyoonin isaga oo nool. nebiga wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam, man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii, qofka aniga wuxuu yidhi riic igu arkaa waxa uu la mid yahay qof sida run ii arkay oo kale, maxaa yeelay shaytaanka aniga ima suureysan karo. laakiin qofkani maadaama uu ku riyooday nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama oo meed ah oo dhintay, macnaheedu maxaa weeyaan sunnada ma nooleynayo qofkan. nebi maxamed sal ly slam muxuu nooga tegay anaga? wuxuu nooga tegay sunnuu nooga tegay. marka tan macnaheedu waxa weeyaan qofkani waa qof dilay sunnada aan nooleynin waaye. sunnada in la nooleeyaa loo baahan yahay. acmaashii nebiga uu ka tegay in lagu camal falo. ilahi muxuu yahay subxana watacaala, in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah. haddaad jeceshihiin ilaahi nebiga raaca, ilaahi waa uu idin jeclaanayaaye. marka waxa weeyaan qofkani ku riyooda nebiga oo dhintay, sunnadiisa ayuu dilay, wadadiisii ayuu dilay, ma uusan nooleynin waaye. marka gabadhaan iyada waxaan kula talinayaa sunnada nebiga nooley sala allahu calayhi wasalam. qof kale ayaa waxa uu leeyahay johnny ay ugu qoran tahay, sheekh waxaan ku riyooday aabahay oo dhintay, habeen kasta allah u naxariistee ayaan ku riyoodaa. macnaha aabaha oo dhintay habeen walba marka uu kugu soo noqnoqonayo asbaabaa jirto oo uu kugu soo noqnoqonayo. asbaabta jirta oo kugu soo noqnoqonayo waxa weeyaan imaa inuu kuu bishaareynayo, waa imaa inuu kuu digayo. haddaad markaasi camal xun aad ku sugan tahay, wuxuu aaba kaa soo doonaya wax kale maahan, digniin uu kuu digaya, wiilkeygiiyo hooy uu ku leeyahay. haddii aad markaasi camal wanaagsan aad suubinaysane, waa uu ku faraxsan yahay, waa uu kugu boorinaya oo wuxuu ku leeyahay sameey, halkeedii aad dhigtay, halkeedii aad joogtay sameey ayuu ku leeyahay. marka qof dhintay oo riyo lagu arkaa, imaa bashiir waaye, waa imaa nadiir waaye, inuu bishaaro wado iyo inuu digniin wado waaye. qofka ay ugu qoran tahay nafisa cabdilaahi, qof ay ugu qoran tahay ayaa waxa ayna soo weydiisay, waxa aan ku riyooday aniga oo dhar aan fiicneen ama qaawan, dirac iyo masar yar xidhan oo aan asurnayn, oo u shaqeynaya bulshada siiba rag. arrintan waxay ka tarjumaysaa in aad tahay qof ka gaabiyey cibaadada ilaahi subxaanahu watacaala. ilaahay wixii uu ku abuuray ayaad ka gaabisay walaashayda muslimada ah. digniin waaye. qofka marka uu dhar gaagaaban isaga oo xiran ama isaga oo qaawan uu is arko, waxa kusoo socota waa fadeexo, ceeba kusoo socoto. wuxuu ka fogaaday waxa weeyaan wadadii xaq ahayd ayuu ka leexday, wado xun ayuu ku socdaa. marka ragna waa ku dhex jirtaa. arrintani waxa weeyaan ramsigeeda iyo fasilkeeda waa fadeexo kugu soo socota waaye. allah kaa nabadgeliyo insha allahu tacaala. waxay kaloo oo na soo weydiiyeen juweeriye faarax ayaa waxa ay na soo weydiisay, dad badan oo aan garanayo ayaan ku riyooday iyaga oo dhimanaya, laakiin riyadii igu naxdinta badneed waxay ahayd walaashay iga yar oo dhimanaysa, weliba aan la joogo, cidna uma sheegin, ee wax u duceeyey. alxamdulilah, maanta waa xaas walaashay, weliba caruur haysata. haddii qofka dad badan oo wada dhintay haddii uu ku riyoodo, fitna waaye. meeshaasi ay riyada ay ka dhacday, qofka uu riyada uu ku arkay ayaa waxaa ka dhacayo fitno. fitnaduna waa dagaal waaye, rabshaa ka dhacayso. marka qofka mar haddii dadku dhan oo wada dhimanayaan haddii uu ku riyoodo oo yani majmuuca dad ka mid ah majmuuca oo dhintay, macnaha meeshaas iyada fitne iyo dagaal iyo rabshado ayaa ka dhacaya waaye. ama midan ku gaarka ah ee walaasha khaaska ku ah, si gooni ahna aada noogu sheegtay ee aadna uga naxday, ee aad marka dambena u duceysay, waxa weeyaan walaasha waa gabar muslimad ah waaye. qofka bani aadamkana qalad uu ka dhacaa, laga yaaba inuu qalad ka dhacayo. waxaa kaloo dhici karta inuu gabadha walaasha aad adiga ah u jeceshahay, shaydaankana uu rabo inuu ku cabsi geliyo adiga, oo wuxuu ku tusinaya walaasha dhimatay uu kaa nixnixinaya. laanna maxaa yeelay shaydaanka sidiisaba waxaa waaye
liyaxzuna aladiina aamanuu si uu u tiiraayo geliyo u murjiyo dadka iimaanka leh ee mu'miniinta ah walaysa bidaarihim shay-an ilaa biidni illah wuxuusan ilaahay idmidna ma ku dhibaateyn karo marka shaydaanka sidiisaba waa dhib badan yahay waxa uu doonayaa inuu ku dhibaateeyo inuu kaa soo maro xagga waalidka xagga walaalka dadka adduunka ugu jeceshahay adiga oo soo jeeda iyo adiga oo hurda intaba qof kale ayaa waxa uuna soo weydiiyey shiikh walaalka oo dhintay markaas ku riyooday maxaa ka macno tahay kasoo hadal allah ku barakeeye walaalka oo dhintay waa sheegnay walaalka oo dhintay ama walaasha oo dhimatay waxa weeyaan waa walaalka khaasatan walaalka marka uu dhintay aad ku riyooto waa daciifaysaa cadowgaaga u daciifaysaa maxaa yeelay walaalka waxa weeyaan waa gacantaada midig waaye waa kii beri ka maalin marka aad u baahan tahay taageero aad u baahan tahay marka aad u baahan tahay taageeris waa midka walaalka ee ku gacan qaban lahaa ee ku saacidi lahaa cududaada waaye cududaada falaajli daalika walaalka oo dhintay markaad ku riyootid awooddaada daciifaysa oo yaraanayso ama walaasha oo dhimatay haddii aad ku riyooto waad quursanaysaa waa quursasho waxaad ka quursanaysaa rajo aad laheyd ayaad ka rajo dhigaysaa oad ka quursanaysaa inaad fahantaan rajaynaya insha allah maariyo maxamed ayaa waxa ayna soo weydiinaysaa oo ayna leedahay shukran ustaad ani mid ayaan ku weydiinayaa waxaan rajaynayaa inaad iisoo fasirto waxaan ku riyooday laba wiil oo walaalahay ah oo dhintay allaha u naxariisto waxaan ku riyooday iyagoo soo noolaaday weliba mid ka mid ah uu leeyahay anoo nool baa lay aasay hal marna ma ahan dhowr mar ku riyooday maxay noqon kartaa riyadaasi ustaad qof dhintay oo ku dhahayo haddii aad ku riyooto ama walaalka ha ahaado ama keyrkiisa ha ahaado haddii uu ku yiraahdo qof dhintay war maxaa la ii aasay aniga weli ma dhiman waa noolahay haddii uu ku yiraahdo taasi macnaheedu waxa weeyaan qofkaasi isaga ah waxa uu ku dhintay shahiidnimo sababtoo ah walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun qofka marka uu shahiidnimo ku dhinto ilahay agtiisa waa uu ka nool yahay ma dhimanayo marka riyada waxay leeyihiin qof dhintay oo ku dhahayo ma dhimanin weli waa noolahay qofkaasi waxa uu qaatay shahiidnimo ayuu ku dhintay waa macnaheeda oo fii sabiili illahi ilaahay dartiisa ayuu qofkaasi oo u dhintay raxmo roos ayaa waxa ay naleedahay oo gabadhaani aan u malaynaya inay tahay gabadha oo ugu dambeysii doono 3 habeen ka hor waxaan ku riyooday hooyaday macaan oo dhimatay allah ii daaye waan kasoo hadlay iyadana tan hadda ka hor hooyo oo dhimatay haddii aad ku riyooto bimacnaa waxa weeyaan naxariistii ayaa dhimanayso oo duugaysa naxariis qof kuu naxariisan jiray oo raxmad kuu nimirin jiray buugga naxariista kuu fiirin jiray ayaa waxa uu kaala goosanayaa naxariistii biilkii qofbaa wuxuu kuu samayn jiray wanaag uu kuu samayn jiray ayaa kaa goosanaya maadaama hooyadu ay tahay raxmatu dunya adduunya naxariisteeda maadaama hooyadu ay tahay haddaad riyo iyada oo nool aad weyso hooyada oo dhimatay aad ku riyooto xaqiiqadana hooyada ay nooshahay waxa aad weynaysaa wax weyn ah waxa weeyaan murug ayaa kuu dambeyso waad ciiloonaysaa waad murugoonaysaa waxbaa kaa go-aayo mataqaanay qof kuu naxariisan jiray oo kuu turi jiray kuu nimirin jiray ayaa waxa weeyaan kaa goosanayo adeegyadaas oo dhan uu kaa goosanaya waa macnaha insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iidaysateen maalin walba oo talaada ah waxaan soo qaadan doonaa insha allahu tacaala aan kasoo jawaabi doonaa su-aalaha aadna soo weydiisaan jawaabahooda ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala intaynu barnaamijka xiga aynu ku kulmi doono waa anigii macalin muuse ahaa oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh